gawaariduna ay si tartiiba u socdaan lamana oga in ay tahay arrintaasi dib u gurasho xeel dagaal ama in gebi ahaanba ay ka ruqaansadeen degmada Guraceel oo ay soo galeen maalinnimadii Sabtida ahayd. Faarax Lamaane, BBC, Gaalkacyo. ilaa 40 Soomaali ah oo ka soo gudbay xadka Turkiga iyo Greega ayaa waxay gaareen magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega. qaxootigan ayaa dhowaan waxaa ilaalada xeebaha badaha dalka Greega ay ka soo badbaadiyeen badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega waxaana la soo daayay kadib markii in ka badan 10 maalmood lagu hayay meel aan ka fogeyn xadka oo xero qaxooti ah. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada Athens. qaxooti Soomaali oo tiradooda lagu qiyaaso inay ka badan tahay 40 ruux ayaa soo gaaray magaalada madaxda waddanka Greega ee Athens iyaga oo ka soo tallaabay xuduudda badda ee u dhaxaysa wadamada Greega iyo Turkiga. Soomaalidan qaxootiga ah oo isugu jira rag, haween iyo waliba caruur ayaa iyagu waxa ay ahaayeen kuwa soo gaaray magaalada Athens kadib safar dheer oo ay uga soo tallaabeen badda lagu magacaabo Eega oo u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Greega. waxaana ka muuqday daal iyo rafaad aad u fara badan iyadoo qaarkoodna ay haysatay caafimaad darro. qaxootiga Soomaalida ayaa iyagu waxa ay ahaayeen kuwa adeegsanayay doonyo yar oo lagu sameeyay bacal la buufiyay iyaga oo ku saarnay tiro aad u fara badan waxaana badda ka soo badbaadiyay askarta badaha ilaaliya ee Greega iyaga oo ku soo xiray xero qaxooti oo ku taala jasiiradda lagu magacaabo Midilli oo ku taala xadka u dhaxeeya wadamada Greega iyo Turkiga. waxaana ay halkaasi ku xirnaayeen dhowr iyo 10 casho kadibna sidaas ayaa lagu sii daayay. dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa waddanka Greega waxa uu ahay goobta saddexaad ee qaxootiga Soomaalida u doortaan si ay u gaaraan wadamada Midowga Yurub. sanadkan aynu ku jirno kaliya ee 2008 ayaa waxa waddanka Greega soo galay dhowr kun oo qaxooti Soomaali ah ayaga oo ka soo galay xuduudda bad iyo bariba leh ee waddanka Greega la wadaago waddanka Turkiga. iyadoo sidoo kalena ay jirto qaar fara badan oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida inay ku geeriyoodaan badda kadib marka ay la qalibmaan doonyaha yaryar oo ay u adeegsanayaan si ay u soo gaaraan waddanka Greega. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan, Maxamed Deeq, BBC, Athens. magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaa si rasmi ah maanta uga furmay shirka madaxda Midowga Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha qaaradda.